maxaa ka dhacay xalay Puntland waa lagu kala cararay xalfadii hoolka askar ayaa timid midiyo ayaa la iskula baxay wiilka lagu magacaabo Tamiim ee halkan socda ayaa dayaxtan noorshe toorey gali rabay waxaana sidoo kale muuqaal ashaxuma ah laga duubay maamaqadan iyo dayaxtan noorshe oo sameynaya wax alle iyo sidoo kale diintiisaba ka fog waxaan kula wadaagi doonaa xalay wixii Puntland ka dhacay isla markaana xalfadii kulmiday dadka caanka oo dhan reer Somaliland reer Soomaaliya iyo sidoo kale Puntland State of Somalia halkaasi sanad guuradii Puntland ayaa ka jirtay xalana waxa isugu yimid dad aad u fara badan balse maamaqadan qaran ayaa muuqaal sir ah laga duubay iyadoo oo dayaxtan oo ku sameynaysa wax aad u qaldan sidoo kale maamadan oo aad u nacab Soomaaliya isla markaana aaminsan kaliya inay adduunka ka jirto Somaliland wax la yiraahdo ayaa go'aan ku gaartay inay isku dirto laba wiil oo ka timid Soomaaliya isla markaana magaalada Muqdisho ka timid Puntland la dabaaldegaysay waxayna tiri waxaan dhex dhigayaa faaxisho iyo foolxumo waana isku dirayaa mid ayaa go'aan ku qaatay midka kale inuu la heshiinin balse maamadani waxa ay rabtay kaliya in la isku dagaalo xalfada isla markaana la isku garaaco Najma Nashaat ayaa tiri dhaqan xumada oo dhan waxa wada maamadan lagu magacaabo maamaqada qaran waana maamada ugu dhaqanka xun Soomaalida waxa ay u gaftay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyadoo oo aflagaadeynaysa wiil iyadoo ay dhashay xalay xalfadii waxa ay ka dhigtay wax dadkii reer Puntland oo dhan ay la yaabeen isla markaana dagaal ay abaabushay waxayna go'aankeedu ahay in la isku dagaalo xalfada oo ay isku baaba'aan laba wiil oo ka soo jeeda magaalada Muqdishona ka timid calanka Somaliland ay kor u qaadaysaa waxayna u dhiibaysaa dayaxtan noorshe iyo sidoo kale dhammaan dadkii xalfada ka soo qayb galay haddaba waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalada anshaxumada ah oo ay ka duubtay dayaxtan noorshe isla markaana xalfadii Puntland fashiliday kala xishoon qadana hooyo xaaladii caawa garow ka dhacday xafladii caawa dhacday ayaa markii baashaalkii iyo ciyaartii dhamaatay ayaa casho loo fariistay maama qadan qaran baa mikrofoonka qaatay waxay tiri dhalinyar baa istagaalsanay inaanu heshiisiinaan rabnaa iyadoo khudbadii hadalka wada oo leh ii qabsooma oo arintiina aanu gallo oo aan heshiiska ka shaqeyno ayay si fiidiyogeeda ku sheegtay dayax fiirisay qaybtaas dayaxna waa u dhow la cadeeyay kama uusan diidin uu ka naxay maamada meel public ah waa nin fanaan meel public ah fanaan hadii lagu qabsado la yiraahdo waxa weeye magan baan ku nahay dawaynu aamuso oo magantii yeelo waa nin golaha ninka waxa la yiri meel public ah wax ku yeelahay golahana waxbuu ka gooyaa laakiin Tamiim uu dhaqaaqay faatuush buu gacan ka qabsaday uu dhaqaaqay calashan waan diiday weeye heshiiska albaabku ka baxay iridka markuu marayay baa marka dadkii meesha xafladda joogay wiilkii ku dhigay ceeb weeye Tamiim jooji waxaas waa kan kidi ku dhug kada fiidiyoo baa marka halka laga tuuray waa munaafiqiintii marka meesha joogtay fiidiyoogii baa marka soo bandhigay oo qorshe iyagu kala haayeen inay fiidiyooga dayax inay iyagu xibooday inay ku ceebaysanayaan laakiin dayax kuma ceebaysanaysan title buu ku helay gobonimo inuu qaatay ayuu halka ku muujinaya ninna diiday kadib warka sida la iigu soo sheegay faatuush way soo noqotay waxay tiri aniga dayax waa nin walaalkay ah shalay waa is afdhaafnay waxa weeye haddana waxba iskuma haysano mikrofon buu qaatay wuxuu yiri salaamu calaykum waxa lagu daraa fadlan aniga heshiiska awal baraali kama ahayn labadayada dhinac raali kama nihin idinka unba kadeeday oo khasbaya qadadayda ma cuni kara cashadayda ma cuni kara sidii baa marka arintii lagu xiray ayaguna isaga tageen waxaan uga golleeyahay marka hadalka ku darsanaya Tamiim iyo dayax horta waa wiil iyo atigi goor ay heshiiyaanba way heshiiyeen dad baanan jeclayn in ay heshiiyaan Tamiim iyo dayax iyo aarka iyo dayax iyo dhammaan dhalinyarta isqabsadeen oo dhan dad baan ogolayn dadkaasina hadda ku xisaabtano waa dad iyagu raba inay dayax la heshiiyaan oo raba inay dayax hal mar ay saaxiib noqdaan marna amaana marna soo caaya wiilkaas wax walba lagu caay laga roona la yiri waxa la ubadkiisa la caay xaaskiisa Allah yarxamar raximin waa la caay meel walba waa loo soo maray uma dhicin dayax oo uma jabin oo uma kufin oo wuxuu noqday businessman oo danihiisu qabsaday oo aabba isku filan buu noqday
intaana waa laga xun yahay ka war dad baa jecelba jabkiisa dad baa ku raaxaystada maalin walba waxa lagu caayaa laga roone ayagu ma ogola dadkaasi in lagu tilmaamayo laga roone way ka xanaaqayaan way gumanayaan idima cafin ila qofkii yiraahdo ilaahay baan ku daystay habada dad kale waxay jecel yihiin inay ku yiraahdaan adeer dayaxow gobannimo baad shaqaysatay waxa weeye guul baad shaqaysatay anaa kuu qiraya wala waanan weligay is arkin laakiin dad meediyaha iska bartay aan nahay si gobannimo la baan kugu bartay gobannimadii aan kugu bartay ilaa hadda ku taagantahay muuqaal ana ku soo gudbi karin halkan ayay wada duubeen Dayaxda Nuurshe iyo Maama Qadan waxa ina sameynayeen dhaqan xumo tii ugu xumeyd ayuu yiri wiil aan ka wacay Puntland isla markaana ku sugan Garowe oo ii soo diray muuqaal aad u la yaab leh kadib markii aan arkana aan la argagaxay maamadan ayaana la ii sheegay inay cabto khamrada nuuceeda ugu halista badan markii xalfadahan oo kale ay jiraan kadibna ay ku sarqaanto dadka markii laga tago inay uga timid magaalada Hargeysa inay isku darto laba wiil oo magaalada Muqdisho ka yimid xalfada Puntland ka qayb galayay waxa maamadan u dheeri ah dhaqan xumo tii ugu xumeyd waxaana la ii sheegay in Dayaxda Nuurshe uu ka cararayay kadib markii ay muuqaal ka qabatay Snapchat isaas ugu soo jeediday kaasi ay ku sameynayso wax diinta Islaamka ka fog saas ay ugu qabatay muuqaalka kadibna afka u gelinaysaa qofkii gabadheeda soo caayo way caynaysaa nin Allah ka dhigo gabar Allah ka dhigo way caynaysaa wixii doona dhehaysaa hadduu nin gabadheeda caaya anima soo hor istaagay ma hor fadhiisanay live ma caynay ayada iska celinayso waxay doonayna dhehaysaa wixii afkeeda soo qabtay meeshii doontay kala dhacaysaa hadduu xamar joogan anaa ka qabanayo shanteeda furuuda ka qabanayso hadduu magaalada ka baxsan yahay weerar dhooqaysanaysaa bartuu la dhigaysaa gabar loo baqa ma gabar loo baqa ma wixii caaye ayadu waay wixii hool ahna aniga waay oo gacan ka hadala marka point kala rabay inaan ka hadlo pointka kala waxay tahay waxaan arkay badanaa dadka waxay soo qorayaan gabadhaada cisho ana idinka jaahil bixinay waayda ay sababta aniga u cishan laa maanta haddaad qof caan ah oo rag ah hadduu gabadheeda soo caayo ma cishanay aniga ma cishanay sababtoo social media ku jirta ayada qofkana social media ku jira anigana soo fadhiisto nin afkeyga kuma wasaqeynaayo waxaan ka xigaa inta afkeyga aniga ku wasaqeyn lahaa inaan bartaas xabad ugu dhufto ama lay toogto ama aan shanteeda farad isaga celiyo